nabadda wadayaal iyo dhegeystayaal imika iyo haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeennii ciyaaraha qodobada aad ku dhageysan doontaana waxaa ka mid ah Manchester United iyo Newcastle oo xalay ku kala baxay barbardhac iyo ciyaaraha kale ee caawa laga ciyaari doono horyaalka Ingiriiska daawadayaal qodobadaas iyo kuwo kale oo aad u xiiso badan ee ku daawan doontaan inta baahinteena socotee hanaga ilaawina subscribe-ta ugu horreynba kooxda geesaha weyn ee Man United oo dhan u dhaafi weyday kooxda taagta daran ee Newcastle ayaa xalay garoonka kooxda Newcastle United kala soo laabatay hal dhibic oo ay baryo ku soo heshay kadib markii dhagaha lagaga soo garaacay garoonka baaxadda weyn ee St James Park ee kooxda Newcastle. Dhinaca kale ciyaaraha kale ee caawa laga ciyaari doono waxaa ka mid ah kooxda Crystal Palace oo martigelin doonta kooxda dabaqada hoose ka soo wiilay ee Norwich City, halka kooxda Southampton ay iyana ku soo dhaweyn doonta garoonkeeda Tottenham iyo macalinkeeda buuqa badan leh. dhanka kalena kooxda Watford ayaa iyaduna garoonkeeda kula ballansan kooxda West Ham ee waayahan shidneed balse tooshku ka soo damayo. dhanka kale kooxda dacwooyinka ee Leicester ayaa garoonkeeda ku ballansatay kooxda xooga badan leh ee Liverpool, waana ciyaar si aad loo sugayay maadaama ay xagga sare wax ka bedeli doonto iyo kala sarreynta kaalmaha. daawadayaal barnaamijkan ciyaaruhu intaasi ayuu inoogu dhan yahay, waxaa idinla socodsiinayaan anigu Xasan Barre Ducaale. sidaas iyo nabadgelyo.